maskaxdaada ma ku shubi kartaa barnaamijka hanashada xalka? ma dareemaysaa in qof kasta oo kula shaqeeya uu hayo aragti aad u wanaagsan? cilmi baaris ayaa muujinaysa in qof kastoo ka soo dhalaali karo waxa uu sameeyo, sidoo kalena uu noqon karo qof caqli badan. marka aad isweydiiso sababta dadka qaar ay u leeyihiin haybad hal-abuur ah oo aad u wanaagsan, waxaa dhici karto in aad iska dhaadhiciso in sidaa ay u dhasheen oo dabiici ay tahay, balse taas xaqiiqo ma ahan. adiga xitaa waad baran kartaa arrintaas. dad badan ma ogo in hal-abuurku uu yahay xirfad la baran karo, ayuu yidhi Professor Gerard Bushio oo maamule ka ah waaxda hal-abuurka iyo isbeddelka hoggaanka ee macadka Sani Buffalo ee Maraykanka. mala awaalka ah in hal-abuurku uu yahay wax dabiici ah oo loo dhasho balse aan la barin karin waa arrin aan xaqiiqada ku salaysanayn, balse mar kasta oo laguu diro shaqo u baahan fikir asal ah waad samayn kartaa. fikirka asalka ah ee maalinlaha ah iyo curinta wax cusub. Bushio qaabku u dhigay xirfadda fikirka waa mid ka mid ah hanaanada ugu wanaagsan ee lagu baran karo goobta shaqada. waxaa sidoo kale jira tababaro aad u badan oo meelo kale laga heli karo. barnaamijka baaritaanka wuxuu dhiirigelinayaa 2 nooc oo qaab fikir ah. fikiro kala duwan waa qaab fikir oo sida taayarka u wareegsan, wuxuuna la xiriiraa aaminsanaanta aragtiyo khiyaali ah oo kala firdhisan oo hab sheeko ah loo sameeyey. waa kuwo xal u noqon kara dhibka haddii la kala shaandheeyo. fikradaha wadajirka ah si ka duwan qaabka kore, qaabkan wuxuu ku saabsan yahay kala xulashada iyo la soo bixidda fikradaha ugu wanaagsan iyo xaqiijinta ah in isticmaalkooda uu faa'iido badan leeyahay. labadan qaabba waa muhiim. haddii aad wada beddesho qaab fikirkaaga oo aad la timaaddo hannaan cusub, dhammaan aragtiyadaada waxay noqonayaan kuwo lagu cajiso. waxaa dhici karta in ay noqdaan kuwo aan macquul lahayn oo aan la samayn karin. inta badan dadka buugaagta qora ee aadka ugu wanaagsan qoraalka iyo curinta waxay qaateen tababar maskaxeed, waxayna barteen sida loo turxaan bixiyo fikradaha loolana soo baxo kuwa ugu wanaagsan. kadib tababarka, dadka qaata cashiradaha xirfadaha fikirka waxaa la baraa sida loo wada adeegsado fikradaha kala daadsan iyo kuwa isku hagaagsan. waxay adeegsadaan 7 qodob oo muhiim u ah dhibaatada hal-abuurka ee maskaxeed, waxayna kala yihiin qiimaynta xaaladda, ballaarinta aragtida, kala qaybinta caqabadaha, kala saaridda fikradaha, la soo bixidda xalalka, aqbalaadda maskaxda iyo qorshaynta. tijaabo dhowaan la sameeyey oo laga qaybgeliyey 559 qof oo ahaa arday jaamacadeed oo ay ka mid yihiin dad aan weligood qaadanin tababar hal-abuur ayaa la siiyey cashiro 3 maalmood ahaa sida uu Bushio sheegay. waxaa la siiyey casharo la xiriiray xirfadda fikirka, waxaana lagu qasbay in shahaadada aysan helaynin haddii aysan hal-abuur iyo curin wanaagsan aysan la imaanin. waxaa la baray sida qaab aan caadi ahayn loogu wajaho fikradaha asalka ah ee mashaariicda. dadkan ayaa kooxo loo kala qaybiyey, waxaana la weydiiyey in ay la yimaadaan qaabab ay dadka ugu dhiirigeliyaan in ay adeegsadaan basaska isku xira Buffalo halkii ay tareen raaci lahaayeen. xalka ay la yimaadeen waxaa saxayey khubaro madax bannaan. waxaa lagu qiimeeyey tayada, dabacsanaanta, sida kooxda ugu fikradaha badan uguna wanaagsan iyo asal ahaanta aragtida. sida filashada ahayd, dadka horay u soo qaatay tababarada hal-abuurka ah ayaa aad ugu wanaagsanaa kuwa kale aan horay tababar u soo qaadanin. way ka fikrado badnaayeen, wayna ka aragtiyo fiicnaayeen. dadka ka qayb galay cashirada 3 maalmood waxay aragtiyadooda 67% ahaayeen kuwo cusub oo asal ah, halka kuwa qaatay casharo aad u baaxad weyn oo muddo socday ay la yimaadeen ilaa 81%. taas waxay u muuqan kartaa horumar wanaagsan iyadoo la eegayo xilliga kooban ee cashirada la siiyey iyo sida isbeddelka weyn u sameeyeen. Bushio waxa uu muujiyey oo uu inta badan isu eegayey fikrado kala duwan. tusaale ahaan, marka ay koox ka mid ah u suurigeli weydo arrintan, waxaa dhacaysa in xalka ugu dambeeya ee ay keenayeen uu noqonayay midka ugu wanaagsan. marka la barbar dhigo kuwa ay arrintaa u fududdahay, sida cad, curinta habka degdega ah waa qaabka ay xal dhaqso ah ku heli karaan dadka si ay u xoojiyaan awoodda maskaxeed. balse ma joogtayn karaa tababarasho wax ku ool ah? hal-abuurku waa shaqo adag, ayuu yidhi Bushio. wakhti badan ayay qaadataa si loo soo saaro fikir wanaagsan oo wax soo saar leh.